abaalmarinta heer qaran ee haweenka warbaahinta oo habeennimadii xalay lagu qabtay Hotel Mansour ee magaalada Hargeysa ayaa waxa soo qaban qaabisay dalladda isku xidhka haweenka ee Nagaad Network oo kaashanaysa hay'adda Oxfam. Munaasabadani ayaa waxa ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Mustafa Cabdi Ciise, agaasimaha guud ee wasaaradda dastuurka Deeqa Cabdi Yuusuf, agaasimaha hay'adda maamul wanaagga Fadxiya Maxamed Cabdiraxmaan, gudoomiyaha dalladda Sonsof Anwar Cabdiraxmaan Warsame, Ayaale Cabdilaahi Cali oo ka socday hay'adda Oxfam, gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Somaliland ee Soldier, Shaafici Maxamed Ibraahim, saxafiyiin kala duwan oo ka kala socday warbaahinta madaxa bannaan iyo ta dawliga ah, iyo marti sharaf kala duwan oo ka tirsan qaybaha kala duwan ee bulshada. Waxaan mahad celinayaa hay'adda Oxfam oo runtii shaqadan iyo shaqooyinka badanba muddo aan la tirin karin nagala soo shaqaynaysay, nala dhiirigelisay gabdhaha maanta mudan ee sharfan inaanu halkan ku soo dhaweyno. Runtii hablaha miidiyuhu dee waa la garanayaa caqabadaha hablaha Somaliland ay runtii u galaan position kasta iyo shaqo kasta oo ay qabanayaan. waxaan leenahay hablahani waa hablo ka mudan shaqo kasta oo la qabanayo, waayo miidiyaha waynu ognahay dhibta iyo challenge-ka ay leedahay. waxaynu ognahay inay muddooyin dheer istaraga lagu soo jiray inay barnaamijyo sameeyaan. maanta laakiin waxa sharaf noo ah inay gabdho badan ay gidaarada jabiyeen, inay iyagu leeyihiin platformyo gaar ah oo ay furteen. warbaahinta Somaliland inta maanta laga maamusay oo ugu weyn tahay Yasmin, waxaan oran karaa waxaad asiibteen halkii ugu wanaagsaneed. Nagaad oo runtii ah urur u taagan garab istaagga haweenka iyo la dadaalidda haweenka oo qaar badan oo ka aflaxay ama ka mid ahaa runtii ay saaxadda siyaasadda iyo guud ahaanba bulshada ay ka yihiin xubno firfircoon. aad baan ugu mahadnaqayaa. aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa dalladda isku xidhka ee Nagaad. waxaanu leenahay aad baan idinku mahad celinaynaa, aad baan idinku mahad celinaynaa. runtii Oxfam ahaan waxay noo tahay farxad weyn in aan caawa idinkala soo qayb galno xaflad noocan oo kale ah. waxaan ognahay oon dareensanahay kana warqabnaa in habluhu iyo dumarku guud ahaan ay yihiin lafdhabarta bulshadana kaalmo kala duwan ay kaga jiraan. Soldier-ahaan waan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galno madashan mudan lagu abaalmarinayo hablaha ka howlgala ama ka shaqeeya warbaahinta sector kasta ay tahay, hadday tahay uradii warbaahinta iyo hadday tahay wariyaashii caadiga ahaa oo wax lagu farxo. Nagaadna waa uga mahadnaqaynaa inay doorkii haweenka ay qaadanayso ay hadda jeer door bidayso inay dhiirigeliso. waxaan rajaynayaa hablaha la maamusay haddii aan laba ku roon yahay ay Nagaad garatay inay maanta caawa abaalmarinaya halkan ku siiso hablahaasi, inay hablaha kale ee walaalahooda saxaafadda ku jira ay khibradda iyo experience-ka la wadaagaan. farxad gaar ah bay tahay caawa ka soo qayb galo munaasabadda loo qabanayo 6 hablood ee ka socda saxaafadda lagu abaalmarinayo. aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa cid kastoo soo qaban qaabisay oo ka tahay Nagaad. isku xidhka Nagaad waxaan aad iyo aad ugu bogaadinayaa hawshan marka laga tago inay dhammaan u taagan yihiin horumarka haweenka marka laga soo bilaabo aasaaska Nagaad ilaa maanta. runtii farxad ay tahay in aan kala soo qayb galo bahda saxaafadda Somaliland, khaasatan hablaha warbaahinta Jamhuuriyadda Somaliland ee goobta jooga oo aan labada ay ugu celcelinayeen inay mar walba habbi ku faraxsan yihiin inay suxufiyiin reer Somaliland yihiin, halkay nabad qaar isku arkaan inay suxufiyiin Soomaaliyeed yihiin. iyagu mar walba waxay habbi ku yihiin ay isku arkaan inay suxufiyiin reer Somaliland yihiin. waana tan mar walba aan sheego in qof walba meesha uu yahay uu wax ku yahay. qofka Somaliland jooga Somaliland wax ku yahay, waa reer Somaliland nin walba dalkiisa wax ku yahay, gobol walba dalkeeda ku tahay. marka aad baan hablaha u hambaleynayaa dulqaadka inta badan goobta inaynu joognana iyaga ayaa kowka inaan ku maamusno. anigu sideedaba habeenada ma imaado xafladaha dhaca, khaasatan Mansour maba soo gaadho hadda xafladeeda ku fogta. marka caawa way ka duwan tahay, buugaagta ma soo qayb galo, xafladaha dhaca ma imaado, inta badan igama aragta marmaleynaya.